ka shaqeynayay in deegaanadan waqooyi bari yeesho maamul ay kaga baxaan dhibaatooyinkii isla markaana u adeega danaha deegaanka. Sidaa awgeed waxaan ku qancay in mas'uuliyadda hoggaanka maamulka waqooyi bari aan tijaabo la gelin, anigoo markaa tixgelinaya codka shacabka, wada tashiyadii aan soo galay, kalsoonidii la ii muujiyey iyo dareenka mas'uuliyadda iga go'an. Waxaan si rasmi ah u shaacinayaa musharaxnimadeyda madaxweynaha dowlad goboleedka waqooyi bari ee Soomaaliya. Uma baahni in la sheego meesha wax naga maqan yihiin, uma baahni in la tilmaamo meelaha ay waxyaaliin. waa ognahay cidda wax xaqeena ku maqan yahay, waa ognahay meesha wax naga jiraan, cidda haysa sida loo heli karo, meelaha laga soo qaadi karo, meelaha xarku ka guntan yihiin. uma baahni in gacanta la qabto la tilmaamo. waxaan idin sheegaya, idin ballan qaadayaa inaan meel kasta ku jirto, geed kasta ay gasho, qof kastoo haya inaan xaqeena halkan soo keeni doono. kuwa aan la hadlayo waa garanaya, cidda aan la hadlayo waa soo yihiin. caawa laga bilaabo sheekooyinkii ahayd lama tegi karo, dowladdu ma aha, annaga u haynayna, annaga noogu dhii waa dhammaatay. wixii dadkani lahaayeen oo 34 sano وبعثتين dareenkiina waa fahmaya, dadka aan la hadlayna waa fahmayaan. waxaan ka howlgeli doonaa haddii alla idmo maalinta ugu horeysa inaad aragtaan miraha halgankiinii iyo dowladdan cusub. talaabooyinka ugu horeeya qaadi doontaan waxaa ka mid ah in xuquuqdiina heshaan ciddan wadda oo fariis. deegaankan wuxuu heli doonaa maalgashi toos ah. wasiirkii maalgashigan waa soo ahaa maalgashi toos ah oo deegaanka la geliyo. ay ugu horeeyaan airport la dhiso, wadooyin la dhiso, iyo dhammaan waxyaalaha kala duwan ee kaabayaasha dhaqaale u baahan yihiin oo toos laydinku keeno. uma baahna cidda wadda oo fariistaan. sidoo kale waxaan xoogga saari doonaa oo ka mid ah ajendaha siyaasadeed aan soo bandhigayno ka faa'iidaysiga khayraadkeenna, kor u qaadista kaabayaasha dhaqaalaha iyo dhiirigelinta maalgashiga. waxaan ka hadlaynaa khayraadkeena xoolaha, beeraha, kalluunka, macdanta iyo wixii la mid ah. waxaan u baahannahay deegaanka inaan dhisano maxjarada xoolaha lagu naaxiyo, lagu tallaalo, dabeedna lagu dhoofgeeyo. waxaan u baahannahay inaan dhisano, qorshaha noogu jirta inaan dhisno deked kalluumaysi. waxaan u baahannahay inaan dhisno deked ganacsiyo weyn oo la asqoraya. waxaan u baahannahay horumarka kaabayaasha. waxaan u baahannahay jid isku xira Buuhoodle ilaa la asqoray. waxaan u baahannahay airport casri oo laascaanood loo sameeyo. waxaan u baahannahay dib u howlgelino warshadii kalluunka la asqoray. waxaan u baahannahay shaqo u abuurno dhallinyarada deegaanka waqooyi bari aan mar dambe gobollo kale shaqo u raadsan oo halkan shaqada ugu timaado ay deegaankooda ka shaqeeyaan. waxaan diyaarinaynaa qorshayaal shaqo abuurisa, kor u qaadaya karaanka bulshada, xirfadooda, isla markaana dadkooda deegaankooda ugu adeegaan, ugu khidmeeyaan. haddii alla meelaha nagu guulay xilka insha Allah waa ku guulaysan doonaa. waxaan samayn doonaa isbeddel rasmi ah oo maalinta ugu horeysa xafiiska tagno aan u baahan doono gacmahana la qabto na la hago.